بسم الله. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهديه الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. waxaan kusoo jirnay kitaabkii masaa'il aljaahiliya anagoo kaalmaysanayna sharxii sheekh saalix ibn fawzaan alfawzaan. waxaan soo gaarnay almas'alatu asaadisatu walkhamsuun. waxaan soo gaarnay masalada 56aad. sheekh fawzaan wuxuu cunwaan uga dhigay tasmiyatuhum tawxiida shirka. nimanka jaahiliyada ah inay ku magacaabaan tawxiidkii alle iyo alle in laga ictiqaadiyo inuu cibaadada keligiis mudan yahay, iyo waxay u arkaanba inay shirki tahay. iyada lafteeda gaalnimo ay leeyihin, waxoodaa la fiican iyo shirkigoodaa la fiican. marka masalada 56aad waa tasmiyatu itibaaci alislaami shirka. islaamkii raacidiisii in lagu magacaabo shirki, kamaa dakarahu sida alla uu sheegay fii qowlihi tacaala. alla qowlkiisu yiri kamaa dakarahu sida alla uu sheegay fii qowlihi tacaala: ما كان لبشر أن يؤتيه الله الكتاب والحكم والنبوة ثم يقول للناس كونوا عبادا لي من دون الله. سورة قال أمها قف بني آدم إن الله أوصيه كتاب ووحي لوسو دجيه وحكمتنا لبره نبي نمنا لسيه، ثم يقول للناس انت كدبنا ذاتك وكيره كونوا عبادا لي من دون الله، aniga addooma iyo noqda oo i caabuda alla sokadii. taas wax dhici kara maaha. alla uu leeyahay. sheekh fawzaan wuxuu yidhi masaa-ishii ahlu jaahiliyada waxaa ka mid ah in tawxiidka iyo xaqiga la raaco ay ku magacaabaan shirki. taasina waa xaqaa'iqdii iyo xaqiiqooyinkii oo la daba gedinaayo in tawxiidkii ay ku magacaabaan shirki, sababtoo fitradooda ayaa dabagedisan oo ka halowday. fitradii yaa ka halowday. aayadani waxay kusoo degtay uu leeyahay shiikhu wafdi ka yimid xaggaas najraan. najraantu marka waa meel hadda ku taala sacuudiga oo dhinacaas koonfurtaas fog ah. marka wafdi baa ka yimid oo kiristaan ah, diintii kiristaanka ay haysteen waagaas. rasuulku u yimideen sala allahu alay wasalam iyagoo wada hadal la sameynaya. masjidkii usoo galeen rasuulka sal ll ly slam. markaasaa rasuulku sal ll ly slam wuxuu u bandhigay islaamka inay soo galaan, wuxuuna u caddeeyey in ambiyada dhammaantood alla uu ballan ka qaaday haddii nebi moxamed sal ll ly slam lasoo diro oo mid ayaga ka mid ambiyadii uu nool yahay inuu nebi moxamed raacayo. mid nimankii wafdigaah ka mid ayaa wuxuu yidhi: aturiidu yaa moxamed an nacbudak? war moxamedow ma waxaad naga rabtaa inaan ku caabudno? marka xaqii la raacayo wuxuu ku magacaabayaa shirki iyo in rasuulka sal ll ly slam la caabudayo. markaasaa alla aayadan soo dejiyey: maa kaana libasharin an yu'tiyahu allahu alkitaaba walxukma walnubuwata huma yaquula linnaasi kunuu cibaadan lii min duuni illah. sheekh macallim marka wuxuu leeyahay aayaddu hadda ee qisadan la sheegay ee wafdigii najraan ka yimid ee kiristaanka ahaana way tanaawulaysaa, way soo gelayaan aayadda. waxaa kaloo aayadda soo gelaya nebiyullaahi ciisa, oo haddii la fiiriyo sheegashada ay kiristaanku ay sheegteen inuu faray ayaga inay ka dhigtaan rabbi iyo kula caabudo. waxaa kaloo aayadda soo gelaysa buu leeyahy shiikhu nebiyullahi ibraahim, sababtoo ah waxay leeyihiin kiristaanku ibraahim laftiisu caqiidadeenu aaminsanaayay leeyihiin, wuxuuna dadka fari jiray in ciise laga dhigto rabbi. sidoo kale nimankii mushrikiinta ahaa oo carabta ahaa yaa waxay sheeganayeen inay diinka nebiyullahi ibraahim ku taagan yihiin ayagoo malaa'igtii caabudaya. marka nebi moxamedna ma farin in la caabudo asaga, nebi ciisena ma farin, nebi ibraahimna ma farin, ee waa lagu been abuurtay. sheekh mucallim wuxuu leeyahay qofkii alle uu ka ogaado inuu shirki dadkii faraayo dee nebinimo la siin maayo. qofkii nebinimo la siiyana
alla waa uu ka ilaaliyey inuu shirki dadka faro. sheekh fawsaan wuxuu yidhi waxa aanay taas u dhacaynin oo ambiyadu aanay u faraynin dadka inay caabudaan ayaga maxaa yeele ambiyadu waxay la yimaadeen towxiid bayba la yimaadeen oo allah hala caabudo leeyihin keligiis. shirki lama aysa imaanin ambiyadu, mana la imaanin inay dadka ku yidhaahdaan annagana caabuda. waa ka hufan yihiin arrinkaas, wax dhici karana maaha. waxay ambiyadu la yimaadeen in shirkiga la inkiro. laakiin nimankaas kirishtaanka ee madiine yimid ee rasuulka sal slam la hadlayay tacasub baa u geeyey inay warkaas yidhaahdaan, ay been abuurkaas sameeyeen oo yidhahdaan ma inaan ku caabudnaa rabtaa. yani isaguna wuxuu leeyahay rumeeya nabi alla soo diray baan ahay oo mucjizaad baa la siiyey oo qur-aankan ugu weyn yahay. baadida iyo dalaalka aad ku jirtaan kasoo taguu leeyahay. tiibay marka waxay rabaan inay diidaan oo marmarsiyo u helaan, markaas waxay leeyihin uma waxaad rabtaa inaan adiga ku caabudno. marka aayaddu kuwaasay radinaysaa. marka yani meesha xaqa ay raaci lahaayeen waxay leeyihiin maya waxaad rabtaa inaan ku caabudno. sheekh fawsaan marka wuxuu leeyahay alla caawa iyo xalay isu ekaa buu leeyahay. waxaa jira buu leeyahay haddadan dad in alla keliya la caabudo ku magacaabaya gaalnimo oo le diinkii baa laga baxay haddii alla keliya la caabudo, oo shirki ku magacaabaya. waxay leeyihiin qubuurtii oo la caabudo yaaba towxiidku ku jiraa, islaamka saxdaa waa taas. sababtoo qubuurta la caabudayo wax kale kama wadnee waxaan ka wadnaa, waxaan ku tawasulaynaa dadkii u wanaagsanaa, waxaana muujinaynaa inaan jecelnahay. nimankaas marka qubuurta maaragtay ag fadhiya mar walba ee ku fidnaysan waxay ictiqaadsan yihiin qofkii aan rasuulka sal ll slam la caabudin oo aan alla ka sokow baryin rasuulka sal ll slam oo ku istiqaasoon inuu yahay qof rasuulka sal ll slam necab oo xoogaa jafaa uu ku jiro iyo adkaan iyo qalafsanaan. taasina marka waa wix nasaaradii ku hadlayeen oo kale, kuwii ka yimid najraan. waxaa taa lamida wixii kuwii kirishtaanka ahaa ee reer najraan ay ka yiraahdeen raacidda rasuulka sal slam inay tahay caabudid la caabudayo rasuulka sal slam. marka taasina waxay daba joogtaa madhabkii ahlu jaahiliyada. mid walbo ayaga ka mid a xaqi buu baatil ku magacaabayaa, baatilkiina xaq buu ku magacaabayaa. allah naga nabadgeliye. nimanka la yidhaha jahmiyada ee magacyada alle tilmaamaha alla oo iska inkiro iska dafira, iyo nimanka muctasile la yidhaahdo ee tilmaamaha alla diida, waxay ku magacaabaan tilmaamihii alle la sugaayey shirki bay ku sheegaan. sababtaa waxay leeyihiin waxay keenaysaa kii la magacaabay inuu badan yahay, ama kii tilmaamaha badan lagu tilmaamay in uu badan yahay oo uusan waaxid noqonayn. marka tilmaamihiioo maaragtay batana iyo magacyadiioo batana ma keenaan tacadud almacbuud ama tacadud almusama, ma keenaan tacadud almawsuuf iyo tacadud almusama ma keenaan. baatil bay isaga hadlaayaan. almasalataani asaabicatu walthaaminatu walkhamsuun, labada masalo ee midna ay tahay 7 midna ay tahay 8. sheekh saalax alfawsaan wuxuu cunwaan uga dhigay altaxriifu walayu lalsinati fi kitaab illah. bedelaad iyo leexin carabkii lagu leexiyo kitaabka alle oo waxaan alla dhihin la yidhaahdo alla waa yiri, oo towraad lagu daro waxaan alla soo dejin, ama macnihii la qaldo oo dadka been looga sheego. marka sheekh maxamed abdulwahaab wuxuu leeyahay taxriifu lkalimi can mawaadicihi walayu lalsinati bilkitaab. labada masalo waa kuwaas. marka tan 7 waa taxriifu lkalimi can mawaadicihi, waa hadalkii oo meelihii uu ku aadanaa iyo sidii saxda ahayd laga leexiyo. tan 8 waa maxay? walayu lalsinati bilkitaab, in carabkii lagu qalloociyo kitaabkii. marka iyada lafteedu waa noocun taxriifkii iyo beentii ka mid ah, oo kitaabka alle iyo wixii la soo dejiyey oo towreed ahaa yaa wax lagu daraaya. marka meelo badan baa lagu sheegay inay maaragtay qur-aanka bedelaan. afatatmacuuna an yu'minuu lakum waqad kaana fariiqu minhum yasmacuuna kalaama allahi huma yuxarifuunahu min bacdi ma caqaluuh. waxaa kaloo alla u yiri min aladiina haaduu yuxarifuuna alkalima can mawaadicih
kuwa yuhuudda ahaa waxaa ka mid ah kuwo kelimka ka leexiya oo ka qalloociya meelihii munaasibka u ahaa, yani macnihii hadalkay bedelayaan, tawiilkii fasiraadii saxda ahayd bay ka bedelayaan. marka macnaha towreed bay ku ciyaarayaan waay macnuhu. aayad kale alla wuxuu yidhi yuxarifuuna alkalima min bacdi mawaadicihi, suurat lmaa-ida, aayadihii xukunka ka sheekeynaya. oo nimanka yahuudda ah laba ayaa zinaystay oo muxsan ahaa, xukunkooduna rajmi uu ahaa. marka rajmigii rabaa inay qariyaan, markaasay rasuulka sal slam dad usoo diran yidhaahdeen bal rajmiga iyo wax uu ka aaminsan yahay noo soo weydiiyo, hadduu rajmi idin farana ha ka yeelinina, hadduu waxaad aad ku dhaqantaan idinku oo ah in la yidhaahdo waa la karbaashayaa dadka zinada ku dhaca markay guur soo maraan saxa, waa la karbaashayaa in la yidhaahdo, xoogaa maaragtay wejigaa laga madmadoobaynayaa, dameer baa la saarayaa iyagoo gadagadaal loo jeediyey iyo waxaasi waxbay dhoodhoobeen. iyagu waxay rabaan in rajmiga ka cararaan. mogta rajmiga waxay leeyihin waa nagu cuslaaday, dadkii ashraafta ahaa ee sharafta lahaa yaa zinada ku dhacaya, ma dadkaan marka dili karnaa ay leeyihin. marka waa inaan diinta bedelnaa yidhaahdeen. marka maxamed hadduu idin faro waxaad ku sugan tihiin aqbala, hadduu idin khilaafana ka digtoonaada. yani ibn cabaas baa warkaas laga wariyey dariiq cali ibn abi talxa. aayad kale alla wuxuu yidhi wajacalnaa quluubahum, nimankii yuhuudda ahaa quluubtoodii waxaan ka dhignay qaasiyatan, mid adag oo aan khayr ku gelaynin, waa gaalnimadooda darteed. yuxarifuuna alkalima can mawaadicih, kelimkii bay meelahoodii ka bedelaan oo kitaabkii towraad ahay ayagu gacantooda intay ku qoraan iyay waxay ku qorayaan wixii alla soo dejiyey waxaan ahayn, hadhowna dadki been u sheegaya. marka carabka in kitaabka lagu leexiyana waxaa ku soo arooray alla qowlkiisa uu yidhi waina minhum lafariiqan yalwuuna alsinatahum bilkitaabi litaxsabuuhu min alkitaabi wamaa huwa min alkitaabi. yuhuudi waxaa ka mid ah qole leexinaysa carabiyadooda kitaabkii ku leexinaya, macnaha waxay bidceysteen ayagu ay soo dhoodhoobeen oy kitaabkii ku darayaan iyo waxay leeyihiin waa waxa alla xaggiisa ka yimid. litaxsabuuhu min alkitaabi, si aad ugu malaysaan wixii lasoo dejiyey inay kamid yihiin oo towraad kamid yihiin. wamaa huwa min alkitaabi, kitaabkiina kamid maaha. wamaa huwa min alkitaabi, kitaabkiina kamid maaha. waxay carabkooda ku qalloociyeen oo bedelaada iyo beenta iyo baatilka ah oo kitaabka alle ku darayaan, alla wuxuu leeyahy kaasi ma ahan wixii alla soo dejiyey, laakiin waa waxay ayagu jeebkooda ka keensadeen oo allay ku been abuuranayaan. sheekh fawsaan wuxuu leeyahay taxriifu lkalimi can mawaadicih, waxaa laga wadaa buu leeyahay yani kelimkii in laga leexiyo meeshii munaasibka u ahayd waa in xuruuftii la bedelo ama macnihii laga bedelo. ahlu kitaabka waxyaabaha xune lagu aqoon jiro oo dhaqankooda ah waxaa ka mid ah inay kelimooyinka ka bedelaan meelihii loogu talagalay, ama erayadii laftoodii bay bedelayaan amase macaanidii bay bedelayaan oo tafsiirkii saxdaa tafsiir aan ku fasirayaan. qof kastoo marka hadalkii alla bedela madhabkii ahlu jaahiliyadu uu raacay uu ku sugan yahay. ahlu baatilka, dadka ahlu baatilka ah iyo kuwa islaamka khilaafsan ee firqooyinka dhunsan ah ee islaamkii u abtirsanaya nusuusta way bedelaan si iyaga waxa ay rabaan iyo hawadooda iyo waxay itiqaadsan yihiin ay nusuusta u waafaqdo. ama marka qaarkood inay lafdigii bedelaan baa dhici karta, ama macnihii bedelaan baa dhici karta oo tafsiir qalada ku fasiraan. waxaa laga dhaxlay marka arrinkaas jaahiliyadii baa laga dhaxlay, meel kale lagama keenin. waxaana waajiba in la rumeeyo wixii la soo dejiyey, erayadii iyo macaanidii labadaba, laguna camal falo wixii alle uu soo dejiyey iyadoon waxba laga bedelin. taasaa waajib ah. ama sida aad jeceshahay ha waafaqsanaado xukunku ama ha khilaafsanaade. waqtigan xaadirka aan joognuu leeyahay sheikhu, dadka mabaadi'da xuxun aaminsan iyo madhabaha baatilka ah nusuusta yay leexiyaan ka soo aroortay rasuulka sal alla alay slam, waxayna ku fasiraan tafsiirkeedii waxaan ahayn haddii ay ka caajisaan inay iska diidaan oo iska beeniyaanba. iyaduna waa dariiqooyinka ahlujaahiliyada ka mid ah iyo wixii yuhuudda ku dhaqmi jireen.
waxaana waajib ku ah qofka mu'minka ah inuu kitaabka alle iyo sunnadii rasuulka sal alla ly slam uu ixtiraamo oo uu rumeeyo lafdi ahaan iyo macno ahaanba sidii alla uu doonay rasuulkuna uu doonay sala allahu alay slam oo aanu nusuustii bedelin macaanideedii ka bedelin alfaadii iyo erayadiina aanu bedelin oo aanu wax ku darin waxna ka nuqsaamin ama baatil kusoo dhex darin oo uusan soo qarin. almasalatu ataasicatu walkhamsuun masalada 59aad talqiibu ahli lhudaa walsawaabi bilsaabi'ati walxashawiya in dadkii hanuunsanaa ee xaqi ku taagnaa lagu koofaaro inay saabi'a yihiin oo diinka ka leexdeen, xashawiyana ay yihiinoo dad maaragtay wax magarataa ay yihiin oo faa'iido lahayn oo aan batirsanayn, iska ducafaa oo fahamkoodu yaryahay. sheekh fawsaan wuxuu cunwaan uga dhigay talqiibuhum ahla alxaqi bilalqaabi almunafira, inay ku koofaaraan oo ay ku naanaysaan dadka ahluxaqa ahaa laqabyo dadka ka ceyriya oo lagu naco. manaahijtii marka ahlu jaahiliyada iyo dariiqooyinkoodii waxaa ka mid ah inay dadkii hanuunka alla siiyey ay xaqiraan oo ay ku naanaysaan ama koofaar uga dhigaan naanaysyo xun, koofaaro xun oo fool xun oo dadkii ka cararsiiyo nacsiiyo. waxay leeyihin waa saabi'o. saabi'o waa maxay? waa qofkii diinka ka baxa la yidhaahdaa. dadkii ahluxaqa ahaa iyo waxay ku magacaabayaan inay diinkii ka baxeen, diinkoodii bay macnaha iyagu xaq u arkaan moogta. gaalnimadii ay ku sugnaayeen iyo iyagu xaq u arkaan, marka waxay ku leeyihin diinkii saxdahay bay ka baxeen. qofkii rasuulka raaca sal lla ly slam waxay leeyihin saabi, waa mid leexday bay leeyihin. yacni caadooyinkeennii iyo taqaaliideennii iyo madhabkeennii iyo nidaamkii aan ku soconnay yuu maaragtay ka leexday iyo wixii aabayaalkeen ay ku sugnaan jireen, marka waa lunsan yaha bay leeyihiin. waxay kaloo ku magacaabaan qofkaas xaqa raacay ee rasuulka raacay sal alla ly slam inuu xashawi yahay. xashigu marka waxa faa'iida lahayn, wax un maaragtay meel uun dhexda uga jiro oo aan saas ahayn oo loo baahnayn. xashwul kalaam haddii la yidhahdo waa midka aan faa'iida lahayn. ibnuqayim marka kolley nuuniyadiisa xashwiyadaas ay sheegaan wuu maaragtay ka jawaabay, si fiican buu uga jawaabay. xashawiye ayaga ah buu leeyahay, ilaa waa dad lunsane oo caalamkuusa ka faa'iidaysanayn. waxay kaloo ku magacaabaan dadka ahlu xaqa ah ee rasuulka raacay sal alla ly slam inay yihiin dad maaragtay wax magarata ah oo iska sadxiyiin ah oon si maaragtay xeel dheer wax u fahmaynin. waa dad dib u socda, waa dad maaragtay ad adag bay leeyihiin oo aan horumarka iyo ogolayn. marka qaarkood marka horumarkii iyo ilbaxnimadii iyo maaragtay fogaan araggii waxa ay dadka qaarkood u haystaan inay tahay xaqii oo la beeniyo, gaalada oo la raaco, shareecada islaamka oo lagu tunto oo intii laga tago dhaqamadii gaalada ee la qaato. taasina ma dhibaysa buu leeyahay shiikhu dadka ahlu xaqa ah ee xaqa raacsan. qoladii nabiyullaahi nuux waxay yidhaahdeen wamaa naraaka ittabacaka ila aladiina hum araadiluna baadiya ara'yi, annagu ma aragnay leeyihiin inay ku raaceen moogiye kuweennii annaga hoos hooseeyey ee ducafada ahaa unbaa ku raacay leeyihiin. dadkii waaweynaa oo sharafta lahaa kuma raacin sida annaga noo muuqanaysa. inta kolley annagu aan arkayno dadka un ku raaca waa la isaga jeedaa, waa dadkii maaragtay xirfooyinka xun ka shaqayn jira. dadka ku raacay waa dadkii xirfooyinka liita ka shaqaynayay. baadiya ra'yi yacni un way iska degdegeen bay leeyihiin oo iyagoon aada uga fiirsan bay ku raaceen. haddii aada u fiirsan lahaayeen kuma raaceen bay leeyihiin. ama saasaa noo muuqanaysa annaga in dadka ku raacay ay yihiin dadkii uun hooseeyey, wax qarsoonba ma ahaba. mufasiriinta qaarkoodna waxay leeyihin waa nebi nuux laftiisayba caynayaanba. waxay leeyihiin dadka kuwa weyneynaya moogiye oo macno badan ku yeelaya moogiye xoogaa maaragtay adiguna waxaad iska tahay qof aan ra'yigiisu xoog badnayn. marka sheekh fawsaan wuxuu leeyahay yani waxaa ku raacay leeyihiin dadka un sadxiyiinka oo waxaa un ku raacay leeyihiin dadka sadxiyiinta ah oo aan fekeraynin
iyagoon fakerin bay iska kaa raaceen, laakiin dadka caqliga leh iyo dadka maaragtay degani kuma raacin bay leeyihiin. taasi marka waxay tusinaysaa inaadan xaq ku taagnayn oo aan anagu saxannahay. saasay marka aaminsan yihiin. المسألتان 60 والحادية والستون. مسألة الإحسانات هي مسألة كوئية الإحسانات يسكت دري. افتراء الكذب على الله والتكذيب بالحق. إن ألا لغو بين أورته حقنا لبينيو حقي ألا سود جينا لبينيو. المقار كدو حيرا قال لما دو حيوقع بسنتعوا إن ألا لغو بين أورته وحتى ما تكون إلى غير كيس عبودايا ومفترين على الله. أما حقي ولا بينيو قال لما كنت أسكن بحدي ليه سو تقف كان إلى غير كيس عبودايا يعني غير كاس وحو مدين إلا عبدو ليه. ألا نساس مدين دينك ألا نساس معه وافتراء الكذب على الله. وأنا حقي ولا بيني اللي قال له وحو يري قال لك لي هلا عبوده ودلولك لي أنا لا عبودي. شوف فوزان عنوان ودقي لبدان مسألة الإحدانات يتكون هي الإحدانات افتراء الكذب على الله والتكذيب بالحق. سيدا معناه شيء محمد عبد الوهاب الشاقي شخص يشوف فوزان والشاقي واسكمي افتراء الكذب على الله والتكذيب بالحق. شوف فوزان مركو حول لي هاي إن لغو بين أبورت الله يا رسول كيسي صلى الله عليه وسلم حقنا لبينيو waxay ka mid tahay dariiqooyinka ahlu jaahiliyada sida ay yiraahdeen marka ay kacbada tawaafi jireen iyagoo qaawan foolxumadaasi waxay ka yiraahdeen wajadna calayha aabaa'ana arrinkaas aabayaalkan baan ka soo gaarnay wallahu amarna biha allaana faray leeyihiin. marka waa beentood allay ku been abuuranayaan. الله وحير من أظلم ممن افترى على الله كذبا. يعني واحد كدل بدن ما جيران قف الله كبين أبورتي مرك واحد كدل بدن ثاني يجران ما هو ما هو قال لهدي واحد كدرن يجران قال كدرنا الله ويقولون على الله الكذبة وهم يعلمون. الله يكبين أبورنا يعني بين كشيء يعني يجو أوك مرك كسب معنا بينو شيء يعني ومرقاتي بيني فرايان kitaabka alle waxay ku darayaan waxaan ka mid ahayn iyagoo madaxtinimo raadinaya oo adduunyo raadinaya. alle wuxuu yiri innamaa yaftari alkadiba alladina laa yu'minuuna biaayaati illahi wa ulaa'ika hum alkaadibuun. waxaa beenta abuurta oo alifto alle ku been abuurta kuwaan aayadaha alle rumaynin kuwaasina waa beenaalayaal. alle wuxuu yiri walaa taquulu ha u dhihinina limaa tasifu alsinatukum alkadiba. يعني تلمانت أي عربدين تلمام عن بيانتا دهننا وحي ألا وأدومي سكوار زقي عنتوينا هاي وحلا عنو كاسي وحلال كاسين وحرام هدهننا هذا حلال وهذا حرام هدهننا سياد ألا وبين أورتان هذا الكاس بيانتا يتكوار ليسان سببتو وحاس أدونكو أد حرمتين ألا ما حرمين وحفر ربنا وحلال أدلي دهن ألا ما حلالين بين بدكو شيء ليسان. إن الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون. كو ألكو بين أبورته من ليبانان أيو ألا ليه هو عذاب بيكلايان. شوفوا زي ما حولي مركا وحا تاس لمضة كو رسولك صلى الله عليه وسلم كو بين أبورته أو يراه ذا وحا لقوريي وحاس وحديث أو وحا جرين إيو متكلو وركاس دناسي ورنايا سواء اسكهو بنين كان مارة وركاس بينتا ورينا سواء اسكهو بنين وحو نقونايا كو بينتا شيغاي أما لبدي بينتا شيغايسي ميد كميدا بو نقونايا سا درتي تحديث صحيحة ها وحا كو يميد إن رسولك صلى الله عليه وسلم يري من حدث عني بحديث وهو يرى أنه كذب فهو أحد الكاذبين. مركا يرى نوال وري يرى نوال وري ويرى هذه معناها سوى أقواي أما ليناي وبنتي مثلا سكسة معركتي وشيغاي أما سي ملا وشيغاي يرى هدي اللي يراهدو ملا مركز لغا ودا مركا اللي لبا وركا شيغي سموكته من هو مدكي هورا وركا شيغي waxaa loogu goodinayaa marka alifaada uu alif kan karana inuu ka sii qaado asagii
isagoo og ama malaynaya in warkaas uu been yahay iyo ayadana loogu goodiyey. marka fahuwa axadu lkaadibiina. qaadi ciyaad wuxuu leeyahay saasaan werina buu leeyahay in kaadibiin ay tahay. fahuwa axadu lkaadibiin, kuwa beenlooyaalka mid kamid a. culamada qaarkoodna waxay leeyihin axadu lkaadibeynina waa la yidhi oo sharaxda qaarkood uu sheegayaan in la wariyey macnaha midkii warka marka hore keenay iyo midkii maaragtay isaguna ka qaaday isagoo aan ka fiirsanay. nawowi wuxuu leeyahay waxaa xaaraana in la wariyo xadiis mawduuca. qofkii garanaya inuu mawduuc yahay inuu wariyaa waa ka xaaraan, ama malihiis ay ku qaalib tahay in xadiiska uu mawduuc yahay oo been abuur u yahay. qofkii marka wariye buu leeyahay xadiis uu og yahay ama uu malaynaayo inuu mawduuc yahay, marka uu warinayana aan dadka u sheegayn inuu mawduuc yahay, goodiga waa uu soo gelayaa buu leeyahay. wuxuuna ka mid noqonayaa dadka ku been abuurtay rasuulka sala allahu caleyhi wasalam. sheekh fawsaan wuxuu leeyahay taasi marka waxay ka mid tahay waxyaabihii ay ku dhaqmi jireen jaahiliyadu, in alla ku been abuurtaan. oo waxay sheegteen in alla uu faray inay cawradii faydaan markay tawaafayaan, kacbada tawaafayaan. waxay xaaraan ka dhigeen wax alla uu xalaal ka dhigay. waxay sheegteen in alla uu u jideeyey waxaas ay sheeganayaan. waqaala aladiina ashrakuu low shaaa allahu ma cabadnaa min duunihi min shay. kuwii mushrikiinta ahaa waxay yidhaahdeen haddii alla doono ma aanan caabudneen isaga sokadiis waxbana. low shaaa allahu ma ashraknaa, haddii alla doono shirki kuma aanan dhacneen. walow shaaa araxmaanu ma cabadnaahum, haddii alla doono ma aanan caabudneen kuwaasaan caabudayno. kulli waxaas marka waa alla lagu been abuuranayo, sababtoo ah alla wuxuu rususha usoo diray inay inkiraan wax nimankaasi ku taagan yihiin. marka gunaanadku wuxuu yahay in beentii loo tiiriyo alla iyo rasuulkiis waxay ka mid tahay arrimihii ahlujaahiliyada. qofka muslimkaa waxaa la gudboon inuu ka digtoonaado arrinkaas foosha xun leh. marka qaarkood waxaa dhici karta inaanu asagu wixii alifaynin, beentii inaanu alifaynin, laakiin marka uu alle iyo rasuul wax ka soo warinayo yaanu iska hubinaynin. fataawada iyo jawaabaha sharciga ku saabsanna dadaali maayo, wixii iska hubin maayo. marka wixii uu soo guuriyey hadday qalad yihiin oo aanu hubsanin oo uu dadkii ku dhex faafiyo, wuxuu noqonayaa kuwii beenlowyaalka ah mid ka mid ah. dhib buuna u geysanayaa muslimkii waxaas uu ku dhex faafiyey oo uu soo guurinayo. waxaa waajib ah in aan la faafinin oo aan leesla dhex qaadin axaadiistii beenta ahayd oo aan la warinin. waa in maaragtay meesheeda lagu baabi'iyaa. dadka wacdiya iyo dadka maaragtay inay dadkii dacwada u sheegayaan sheeganaya, ayagana waxaa waajib ku ah inay iska hubiyaan waxay ku hadlayaan markii alle iyo rasuul wax ka soo warinayaan. sidoo kale arrimihii xalaasha iyo xaaraanta iyo fatwadii waxaa waajiba inay iska hubiyaan oo aanay ku degdegin, sababtoo ah haddii lagu qaldamo waxay noqonaysaa alla oo lagu been abuurtay. waa arrin khatar badan. sidoo kale in xaqii ka sugnaaday alle iyo rasuul la beeniyo, xagga dembiga iyo foolxumada kama yara been abuuradkii lagu been abuuranayo alle iyo rasuulkiis. sida alle uu yidhi faman adlamu miman kadaba cala allahi wakadaba bisidqi id jaaah. wax ka dulmi badani ma jiraan qof alle ku been abuurtay oo leh alla walad buu leeyahay waxbuu dhalay, ama saaxibad buu leeyahay, ama alla wuxuu xarimay waxaas wuxuusan xarimin oo cuntooyin waxaas ah. wakadaba bisidqi yani qur-aankii alla uu soo dejiyey oo nabi maxamed lagu soo dejiyey yuu maaragtay beeninaya. waana uun yahuuddu moogta xaasidnimo waxaas uu samaynaysa. way garanayeen in rasuul uu soo bixi doono, laakiin markuu carab noqday yay iska dafireen. waxay kaloo inkirayeen laa ilaaha illa allahuna waa inkirayeen. sidqigiioo la beeniyey kamid tahay iyadoo wakadaba bisidqi. qur-aankiina waa noqonaysaa laa ilaha illa huna way noqonaysaa id jaaahu markii uu yimid oo xaqii maaragtay lasoo gaarsiiyey. haddii marka xaqii uu waafaqi waayo hawadiisa iyo wax naftiisu jeceshahay, wuxuu isku dayayaa inuu beeniyo oo dadkii ka shaki geliyo, sidii ahlu ahwaadi ahlu bidcu ay samaynayeen oo kale. wabillahi towfiiq.